magacaygu waa Saciid Maxamed Axmed waxaan ahay agaasimaha hay'adda arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee Beacon. Maanta waxaa halkan noogu soo dhamaaday tababar muddo bil ah nooga socday jaamacadda Simad oo uu garwadeen ka ahaa macadka arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee ICE. Tababarkan wuxuu ku saabsanaa cadaalad u raadinta arrimaha isbeddelka cimilada. Intii tababarkan noo socday waxaanu qaadanay isbeddelka cimilada saameynta uu leeyahay ee uu bulshooyinka ku hayo gaar ahaan waliba bulshooyinka nugul. Sidoo kale waxaanu aragnay siyaasadaha dawliga ah ee arrimaha isbeddelka cimilada ay u diyaarsadeen dawladuhu inay kaga hortagaan ama ku yareeyaan. Gaar ahaan waxaanu si gaar ah u eegnay siyaasadaha Soomaaliya. Sidoo kale waxaanu isla aragnay cadaalad u raadinta isbeddelka cimilada iyo xeerarka caalamiga ah ee lagu maamulo sida Paris Agreement iyo UNFCCC convention-keeda. Sidoo kale waxaan intii tababarku noo socday aan ku fargaraynay qaabka loo sameeyo sheekooyinka ku saabsan isbeddelka cimilada, farsamadooda, qaabeyntooda iyo soo gudbintooda intaba. Ugu dambeyn aniga iyo tiimka ka faa'iideystay barnaamijkan ka qayb qaatayba waxaan u rajeynayaa in ay uu qayb weyn oo lixaad u ka qaadanayo dadaaladii ay ugu jireen in ay kaga qayb qaataan arrimaha isbeddelka cimilada yareyntiisa iyo si guud fahansiinta bulshada Soomaaliyeed arrimahan. Bismillah, magacaygu waa Sumaye Maxamed Saruur. Ahna ardayda dhigata jaamacadda ummadda Soomaaliyeed baratana deegaanka iyo isbeddelka cimilada. Halkan waxaan uga qayb galay kooras ay bixinaysay hay'adda ICE kuwaas oo ahaayeen kuwa bixinay climate justice iyo waxyaabahaas. Waxyaabaha ka barta waxaa ka mid ahayd climate change justice oo ah isbeddelka cimilada in cadaalad u heli karno. Sidaan ognahay Soomaaliya waxay ka tirsan tahay dalalka ugu badan oo saameeya isbeddelka cimilada kuwaas oo u baahan adaptation iyo waxyaabahaas oo kale. Kooraskan waxa ugu badan ka faa'iido waxay tahay sidee adaptation Soomaaliya u sameyn karna, also sidee ugu hortagi karna waxaan inay muhiim tahay in dadweynaheena gaarsiino isbeddelka cimilada waxa la inay jirto inaan u baahanahay la qabsi inaan sameeyno oo ka wacyigelino waxyaabaha keena isbeddelka cimilada iyo waxyaabahaas. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Magacaygu waa Mustafa Cali. Waxaan ahay tiimka hadda dhameeyay climate justice incubatorska oo ay qabateen macadka isbeddelka cimilada ee jaamacadda Simad ICE. Waxyaalaha ka faa'iideynay waxaa ka mid ah in maanta loo baahan yahay climate advocacy dhalinyaro sameyso iyo in solutions ay dhalinyaro sameysay oo climate-ka dhagiisa iyo in climate justice ay Soomaaliya u baahan tahay. waxyaalaha kale oo ka faa'iideynay waxaa ka mid ahaa in ay Soomaaliya lahayn climate negotiations. hadda COP ugu dambeeyay COP29 oo Baku Azerbaijan ka dhacay Soomaali badan ka qayb gashay laakiin maysan jirin wax climate negotiators wadamada kale climate negotiators ay lahaayeen oo ka negotiate gareynaya ama ka wada hadal ka sameynayay climate justice kaas laakiin Soomaali ma lahayn. hadda haatan waxaan wadaynaa qoladii labaad in aan anaga nahay oo climate justice incubators ka baxay oo maanta wacyi ahaan u dhisan inay climate advocacy sameeyaan aqoon ahaan u dhisan saas dhihi karo. aad iyo aad ay u mahadsantahay macadka ICE iyo dhammaan dadii soo qaban qaabisay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Maxamed Axmed Qaadir. Waxaan ka mid ahay ardayda ka faa'iiday kooraska ay bixinaysay macadka ICE Institution. inta uu kooraska socday waxaan ka faa'iidnay muhiimadda uu leeyahay in wax badan laga ogaado isbeddelka cimilada iyo waxyaalaha sababa iyo sida ay wadamada ugu nugul yihiin. sida aan wada ognahay isbeddelka cimilada waxaa sababa isticmaalka ama sii deynta carbon dioxide tirada badan lagu sii deynayo hawadeena. waxa uuna dhibaateeyaa dhammaan dadyooga ku wada nool dunida iyaga oo ay u kala badan yihiin dhibaatooyinka uu keeno. Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada uu aadka u saameeyo isbeddelka cimilada. waxaan u baahannahay in aan Soomaaliya u sameyno capacity adaptivity iyo mitigation si aan u yareyno impactiga naga soo gaaraya isbeddelka cimilada. waxa aan inta uu kooraska socday anigu si gaar ah ka faa'iiday sida loo sameeyo storytelling digital oo in sheeko lagu soo gudbiyo iyadoo laga hadlayo environment-ga iyo isbeddelka cimilada si loo wacyigeliyo bulshadeena. ugu dambeyn waxa aan u soo jeedinayaa dhammaan shirkadaha iyo maamulka in ay ka shaqeeyaan sidii loo yareyn lahaa isticmaalka gaasiska tirada badan oo lagu bedelo energy-ga dib loo cusboonaysiin karo renewable energy-ga. waa mahadsantihiin.